السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته dadkayga aan jeclahayow haddii ay tahay markii kugu horeysay ee channelkeena aad soo booqato fadlan nagu taageer share like iyo warcelin dhiirigelin ayay noo tahay sidee si degdeg ah aad wax ugu xifdin kartaa waa su'aal joogto ku ah qulubta iyo maskaxda dad badan gaar ahaan ardayda balse ma garanaysaa adigu tallaabooyinka ugu fiican ee aad ku xifdin kartid waxa aad u baahan tahay sida ugu dhaqsiyaha badan oo aanad mar dambe u iloobaynin haddaba haddii aad la doonaysid inaad ogaatid la soco muuqaalkan si aad u heshid jawaabta su'aasha aynu ku bilaabnay barnaamijka ka horse intaanan u gelin tirinta tallaabooyinka waxaad u baahan tahay inaad ogaatid kuwa aad raacsan tahay adigu dadka ma kuwa maqalka wax ku barta mise muuqaalka mise tijaabooyinka haddii aad ka mid tahay kuwa maqalka waxa ku xifdiya wadada u saxan ee aad wax ku xifdinaysid ee aad wax ku fahmaysid waa inaad maqashid xogaha aad rabtid inaad xifdiso haddii aad raacsan tahay kuwa aragga kuwaas waxa ay door bidaan inay arkaan waxa ay u baahan yihiin ama haddii aad raacsan tahay kuwa tijaabooyinka iyana waa kuwa wax ku barta tijaabooyinka iyo khibradaha badankeenu se waxa aynu nahay ugu yaraan laba ka mid a kooxahaasi balse waxa aan jecel nahay inaan kuu soo gudbino tallaabooyin ku habboon koox kasta oo aad adigu tahay si aad u heshid xeeladaha ugu fiican ee sida degdega ah aad mar kasta wax ugu xifdin kartid number 1 u diyaargarow samee si aad u bilowdid akhrinta iyo waqtigelinta waxa aad rabtid inaad xifdiso waxa lagama maarmaan ah inaad heshid goob ku fiican wax akhriskaaga oo diyaarsan sida meel aan buuq lahayn jawi degan leh waa goobta ay dad badan raaxada iyo nasniinta ay ku dareemaan balse adigu ka hor wax kasta dooro halka kugu habboon ee aad ku dareemaysid nasnino maskaxdaaduna ay u helayso fursad ay si toos ah waxa aad akhrinayso ay ugu duubi karto kadib diyaargarowga iyo doorashada goobtaada qaado hal koob oo shaaha waxa uu si dabiici ah shaahu u yahay dhiirigeliya maskaxda waa sida ay inoo sugeen cilmi baarisyo cusub number 2 duub waxa aad xifdinaysid samee inaad ku duubtid telefoonkaaga cod dheer adiga oo isticmaalaya xogaha aad rabtid inaad xifdiso sida kelmado ama qeexdo aad rabtid inaadan iloobin deedna gadaal ka dhagayso codkaaga marar kale number 3 qor macluumaadka aad rabtid inaad xifdiso koon intaadan weydiin maskaxdaada waxyaalihii aad xifdisay samee u diyaargaroobid marka hore samee inaad qortid waxyaalaha aad rabtid inaad xifdiso tusaale ahaan waxa aad akhrisay qayb ka mid ah casharka aad rabtay inaad qaybtid maanta haddaba ku samee qoraal inta aadan u gudbin qaybta kale waxa ay tani kaa saacidaysaa inaad xogaha aad doonaysid in aad xifdiso aad qoraal ka reebtid si xifdintu kugu fududaato number 4 samee khulaasayn tallaabada tan tii ka horeysay waxa aan ku siiyay inaad qoraal ku samaysid waxyaalaha aad xifdinaysid haddaba waxa aad haysataa qoraal badan oo xambaarsan macluumaad aad u tiro badan dhammaantoodna aad akhriday waxaa la joogaa haddaba waqtigii aad kala shaandhayn lahayd u jijabi qodobo iyo noocyo si aad u heshid xogo dhammaystiran maskaxdaaduna ay ugu sahlanaato in ay qabato number 5 ku celceli sadar walba oo aad akhrinaysid dhowr jeer iskuna day inaad xasuusatid adigoo aan eegin buugga ku celcelinta badan waxa ay si toos ah macluumaadka ugu dibdhaa maskaxda hoose wayna adkaynaysaa sida aad ku ilowdid ku celceli ilaa aad ka garato inaad qaybtay number 6 u turjumo luuqadaada isku day sadar walba iyo meeris walba oo aad akhriday inaad u fasiratid luuqadaada haddii uu carabi yahay ama ingiliish uu yahay u turjun Soomaali markastana agtaada ayaanu ka dheeraan qof aad saacidaad ka hesho waxaa jirta xigmad tira xifdintu waa xasuusta fahanka number 7 ka qor xasuustaada hadda waxa aad soo dhamaysay akhrinta casharkii kuu qornaa maanta waad soo samaysay tallaabooyinkii hore haddaba waxaa la joogaa goortii aad warsan lahayd maskaxdaada waxa ay hayso macluumaad qoraal ka samee ujeedkaygu waa imtixaan ka qaad oo u qaad naftaada number 8 u sharax qof kale yeelo saaxiibo aad wax wada akhrisataan samaysana waqti gaara oo midkiinba casharka uu akhriyay uu kan kale ugu sharaxayo noqo marakan macallin gudbinaya wixii uu bartay weydii su'aalo ugana warceli maskaxdaadu marnaba sii deyn mayso xogaha aad siisay cid kale waa tallaabo aad u fiican waxa aad ku helaysaa xogo ka badan wixii aad akhriday number 9 qaado nasniino ugu dambeyn u ogolow caqligaaga inuu neefsado aadista aad meel aadid akhriska kadib adigoo aanan ka fakaraynin waxa aad soo xifdiday waxa ay qayb ka noqonaysaa xifdinta aad samaysay waxa ay u baahan tahay naftaadu inaad maskaxdaada u samaysid nasniin yar si ay hoos ugu daadegto xogaha aad ku shubtay waxana ay nasniintu saameyn ku yeelataa in uu hayo caqligaagu waqti dheer xogaha aad xifdisay fadlan ugu dhiirigeli subscribe iyo share deena ka hel channelkeena taariikho
dad nolosha guula ka gaaray iyo warbixino xiise leh. mahadsan.